waxaan hubaa inay jirto hawl ama hawlo badan oo aad niyada ku hayso inaad qabato balse aanad qaban maalinta ka dambeysana ay ku sii dhiibayso. Hawlahaas oo isbiirsaday ayaa waxay sababayaan inaanad midkoodna qabanin ama aanad si wanaagsan u qabanin. Ficilka noocaas waxaa loo yaqaanaa dib u dhigasho. Dib u dhigashadu waxay ka hor istaagtaa cibaadada, shaqada, hawlahaaga gaarka ah iyo horumarka aad hiigsanayso mustaqbalka. Haddii aynu isla garanay dib u dhigashadu inaanay wanaagsanayn, halkan waxaan kusoo gudbin doonaa 7 qodob oo ka caawinaya sidaad waxqabadkaaga ama hawl maalmeedkaaga kor ugu qaadi lahayd ama aad u wanaajin lahayd. Macluumaadka aan idinla wadaagi doono tixraacooga waxaan dhammaantood idin dhigayaa qaybta hoose ee muuqaalka wixii linkiis ah, halkaas ayaad ka eegi doontaan insha Allah. Qodobka koowaad waa kalendarku wuxuu ka caawinayaa inaanad ilaawin hawlaha kugu soo socda ee aad rabto inaad qabato. Marka ay maskaxda ogaato waxay qaban doonto mustaqbalka dhow ama mustaqbalka fog, waxay sii diyaarisaa hab ama xeelad ay u qaban karto. Haddiise aanay maskaxdaadu ogeyn waxa ay qaban doonto, waxay ku noqonaysaa kadis, saas darteed waxaa laga yaabaa inay ku adkaato xalinta hawshaasi. Haddiise ay kuusii qoran tahay waxa aad qaban doonto, markasta adigoon dareensanayn ayay kusoo dhacaysaa maskaxdaada qaabab kala duwan oo aad hawshaas u qaban lahayd iyo xilliga ugu wanaagsan ee aad qaban lahayd. Isticmaal maskaxda labaad oo aan uga jeedno waxyaabaha kuu sahlaya inaad xasuustaada ku kaydiso. Insha Allah muuqaal kale ayaynu kaga hadli doonaa sida loo samaysto maskaxda labaad, second brain. Waxaana kamid ah inaad gidaarka surato calendar ama waxa kaloo isticmaali kartaa digital calendariska sida Apple Calendar, Google Calendar iyo wixii lamid ah. Qodobka labaad waa email management. Kaliya maaha email management, laakiin waxa kaloo soo hoosgeli kara notificationska kaaga imanaya applicationada kala duwan sida WhatsApp, Facebook iyo waxyaabahaas oo dhan. Notificationada soo dhacaya ama emailada ku soo dhacaya waxay u baahan yihiin inaad iska nidaamiso oo aad notificationka iska xidho. Tusaale ahaan email, qof waliba email waa isticmaalaa. maadaama qof waliba email isticmaalo waxa maalin walba ku soo gaaraya fariimo kala duwan oo qaar badan oo kamid ah ayna muhiim ku ahayn. Emailada ku soo dhacaya furitaankooda iyo ka jawaabidooda waxay ka luminayaan waqtigaas oo u baahan inaad ka faa'iideysato. Haddii ay jiraan emailo badan oo aan muhiim ku ahayn sida xayeysiimaha ka soo dhaca shirkadaha kala duwan ee ku xayeysiinaya alaabahooga inay ka iibiyaan ama ay ku xayeysiiyaan shirkadahaas oo kale, haddii aanay muhiim ku ahayn unsubscribe ku samee. waa inaad emailkaaga tagtaa oo unsubscribe ku sameysaa. Email kasta oo shirkad caalamiya ama shirkad sax ah ku soo dirto unsubscribe baa kula socda qaybta ugu hooseysa emailka, si aanay mar walba waqti kaaga dhumin ama aanay ku mashquulin. unsubscribe ku samee. Taasina waa mid kuu sahlasa in aad kala miirto ama aad kala shaandhayso wixii ku muhiim ah iyo waxaan ku muhiimka ahayn. Qodobka saddexaad waa to do list. Samayso wax qabad qoran oo markasta aad ku qorato hawlaha kuu yaala ama kugu soo aadan. Wax kasta oo aad rabto inaad samayso, haddii aad list samayso, to do list app isticmaal ama waxa kaloo isticmaali kartaa warqad jeebka lagu qaato baa jira oo dadka qaarkood isticmaalaan shopping listiga waxyaabahay rabaan inay soo adeegtaan ay ku qortaan oo mar walba iyo meel kasta aad jeebkaaga ku wadan karto. waxyaabo badan oo waxa jira kuu sahlaya inaad qorato to do listigaas ama waxyaabahaas aad u baahan tahay adigoo isticmaalaya aalado kala duwan. waxay doontaa noqoto isticmaali kartaa oo ay kamid yihiin waxyaabaha aynu soo sheegnay. Hawlahaaga u kala horeysii sida ay u kala muhiimsan yihiin. Hawlaha muhiimka ah ee aad qabanayso mar walba waxa ku dhex jira hawlo badan oo aan muhiim ahayn ama aan wax faa'iido ku soo kordhinayn. Hawlahaas muhiimka ah iyo wixii aan muhiimka ahayn inaad kala saarto oo aad kala horeysiiso, muhiimadana kala siiso, waa arrin aad u muhiim ah. Marka wixii muhiimka ah haddii aad horumariso oo aad marka hore dhamayso, waxyaabaha aan muhiimka ahayn waad ka tagi kartaa, waanad ku dari kartaa haddii aad waqti hesho. Marka qodobkan aad buu muhiim yahay, waa inaad kala horeysiisaa muhiimadda ay ku leeyihiin waxyaabaha aad qabanayso. Qodobka shanaad waa file management. File management systemka ama maamulidda xogta. waxyaabaha aad u baahan tahay inaad xogtaada ku kaydiso, faylasha aad isticmaalasho, waxyaabaha isticmaalasho, kuwaasina waxay kaaga baahan inaad nidaamiso. Nidaaminta qaabka aad xogta u kaydinayso waa muhiim. haddii aanad lahayn qaab aad xogahaaga ku muhiimka ah u kaydiso, waxaa kaa lumaya waqti aad u badan oo aad ka faa'iideysan kari lahayd. qarnigan aynu noolnahay waxaa suuragal ku ah inaad u qabato hawlahaaga si digitally ah oo aanad u baahnayn meel gaar ah ama goob gaar ah oo aad ku fuliso hawshaas. Tusaale ahaan, haddii aad tahay qof qoraa ah, waxaa kuu sahlan inaad mobilkaaga wax ku qorto adigoo safar ah ama tareen saaran, bas saaran ama meel aad ballan ku lahayd sugaya. waxaanad waqtiga uga faa'iideysan kartaa inaad wax qorto. waxaa jira applicationo badan oo hawlaha aad ku sii wadan karto meel kasta iyo mar kasta, waxaana kamid ah Google Documentska, Google Drive, Apple Notes iyo wixii lamid ah. Qodobka lixaad waa capturing information ama taking notes.
waa inaad macluumaadkan kusoo gaadhaya maalinlaha ah ama waqti kasta ama YouTube aad ka aragtid ama maqal aad ku maqashide macluumaadka kusoo gaadhaya inaad qorto waa muhiim. maalintii waxaynu maqalnaa ama aynu aragnaa malaayiin macluumaad oo aynu u baahannahay inaynu weelayno oo aynu save garayno. macluumaadkaasi oo aynu u baahan karno mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba. samayso nidaam aad ku kaydiso macluumaadka sida Kindle app, Notion iyo wixii lamid ah. marka aad u baahato macluumaadkaasi fudud ayaad u heli kartaa oo aad dib ugu noqon kartaa. tusaale ahaan anigu waxaan isticmaalaa Apple Notes oo kale oo aan ku isticmaalo telefoonka ama computerka ama iPad-ka marba midkii ii dhow aan ku qorto. dhammaantoodna way isku wada xiriirsan yihiin. qodobka 7aad oo ah qodobka ugu muhiimsan waa ka faa'iideysiga waqtiga. ogow markasta in waqtigu uu yahay hantida ugu weyn ee bini'aadamku haysto, dibna aan loo soo celin karin haddii uu ku dhaafo. waqtiga bini'aadamka Ilaahay wuxuu siiyey dhammaantood in isleeg oo ay ku kala duwan yihiin qaabka ay uga kala faa'iideystaan. qofka faqiirka iyo qofka taajirka ah isku waqti ayay haystaan. 24 saac ayay maalintii haystaan iyo 7 cisho weekii ah iyo 30 maalin ama 31 maalin oo bishii ah. waqtigeenu maalin walba wuxuu ku dhamaadaa waxyaabo badan oo aan muhiim inoo ahayn nolosheena adduunyo iyo nolosheena aakhiraba. marka waxaad u baahan tahay inaad waqtigaaga dib ugu noqoto oo aad dib uga faa'iideysato. haddii aad tahay qof xiiseeya inuu waqti badan ku qaato akhrinta buugaagta, waxaad u bedelan kartaa audiobooks adigoo dhageysanaya ayaad hawlo kala qabsan kartaa. tusaale ahaan adigoo shaqada ku socda ama dariiq maraya ama jimicsi ku jira ayaad dhageysan kartaa buugaagtaas maqalka ah. waqtigii aad buugga u fadhiisan lahayd hawlo kale oo muhiim ayaad ku qabsan kartaa. haddii aad aragto qof leh waxaan rabaa inaan shaygan waqtiga isaga rido ama gamekan aan ciyaaro ama waxyaabahan maalaycniga waqtiga ku lumiyo, waxaa hubaala inaanu qofkaasi ogeyn wuxuu qaban rabay ama laga rabay inuu qabto. markasta uu ogaado wuxuu qaban lahaa ama wixii u yaalay hawl, waxaa hubaal ah inuu waqtigu ku yaraan doono oo uu ciriiri dareemi doono, waqtiguna ku adkaan doono. waayo waqtiga haddii aad ka faa'iideysato waqtigu isagaa iska yaraanaya. haddiise aanad ka faa'iideysan waxaad u malaynaysaa inaad waqti badan haysato. muuqaalkan intaas ayaan kusoo koobaya. waxay tixraacaa insha allahu linkiyada hoos ayaad ka eegi doontaan. inta aynu ku kulmi doono muuqaalkan oo kale ah aad ayaan idin salaamaya dhammaantiin. nabadgelyo.